waxaynu baraarujin lahayn wadankeena sababaha keena furiinka si aynu bulshada uga daweyno aadna uga feejignaano waxa kamida tarbiyad la'aan iyo tadayun la'aan qofka hadii diintiisu ay wanaagsan tahay rabaayadiisuna fiican tahay wiil iyo gabadhba dulqaadka sabirka xuquuqda la ilaaliyo waxay noqonayaan waxyaabo aad loogu dadaalo oo dadka diintoodu fiican tahay turaalahooda badan sida daraadeed qoysaskoodu aad uma burburaan waa wax hubaala weey waxa keeni kara furiinka waxa la yiraahdo balwada nin marna qaadiraysan marna marqaansan marna xaraaraysan bal kaalay gara sida loola dhaqmayo saddexdaas un buu dhaxeeyaa qof uu marqaansan cirku maraya uu jiiraya iyadii ciyaalkada marna uu xaraaraysan yahay hamaansiga ku badanoo waa markan ay yiraahdaan wajiga iga saaran tahay la hadlay marna uu qaadiraysan yahay marka waxay sheegayaan saddexda xaaladood in aanu qofkii caadi ahayn kulli waa la isku dhacaya marka balwaduna waa musiibo khamri iyo daroogana hadalkeeda badaa baahida iyo faqriguna waa kamido dad badan oo iskaba gobaba isu samri kari waayo oo markay daadkaysan kari weydo ayaa khalaas ayaa furiinka imanaya marka wax soo saarkiina waa muhiim dadka qaarkood aan istijaabina waa keena markay isu dhali waayaan sabirku iska soo yara ururaa kadibna waxay leedahay war hebel deebalaan istijaabin marka sharcigu ma kala eriyaye de istijaabintoodana way iska wadan karaan reerkoodana way iska wadan karaan marka iyaduna iska fasaxday tiraahdo weeyde kol hadii niyaad cid kale iska guursato waa ku fasaxay laakiin istijaabintaasina way keentaa reerku inuu ku burburo bay'ada keeni karta bay'ada dadku ay ku nool yihiin dad iyaga furiinku ku badan yahay ama aan xaasnimada jeclayn ama aan qoyska u roonayn oo gaalaha dad la noosh ama separation ka iyo kala degida aynu sheegayna kala baxa shaqadoodu tahay cudurka waad qaadi hadaa cid la degan tahay cudurka waad qaadi sida daraadeed baa qoysaskeena jaaliyada dabada aad buu furiinku ugu badayn waxa laga yaabaa 100 dumar inaad u timaado 60 ay yihiin mudallaqaat ama kuwa la furay waxa keeni kara shaqada haday iyadu shaqayso ragga qaarkood baa shaqada ka xanaaqo yiraahda de gurigii baan kaaga soo horeynaya aan kaaga dambeynaya ma iska dayn shaqadan war ma dayn maayo shaqada de waaba ku furay xidatu tabci wax iska jira weey inta badan ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga adoomaha yaqaano abuuray ama laba qof oo wanaagsan buu isku hagaajiyaa ama ninka dul qaata ama gabadha laakiin laba xayraan sida badan isku ma hagaagaan markiiba way isku qarxaya dab ku dhufaa la yiraahdo marka sida badan labada dab isku dhufaahay haday salaam furiinku u yimaadaan waxa keeni kara furiinka labada waalid oo isfura hadii labadii waalid ay isfuraan dabcan cudur la kala qaadi karo weeye oo inantiina ay qaadi karto hooyadeed kaga dayan karto marka turaalahay ka mid tahay caruurteena si loogu turo in furiinka loo samro oo furiinka laga samro waxyaabaha keeni kara waxa kamid ah tadakhul ahli wal ashaab aad baynu baraarujinayna midka ehelka iyo asxaabtu inay soo farageliyaan reerka oo iyadana asxaabteedii baa soo ciyaarsiinayo dhagahaba ka haysta iyo dhakada isagana saaxiibadii baa ka dhaxadlaya ama xididkii baa ka dhaxadlaya iyada isagana ehelkiisii baa ka dhaxadlayo la talinayo wuxuu sheegayo naagta caynkan ku dhig ninka caynkan ku dhig labada qof in la isu daayaaba iyaga nolol wada qaadanaya sida eeshiyaanka ma taqaanaa Pakistan India dadkaas gabadha marka loo guuriyo nin waxa la leeyahay heblaayay saacada laga bilaabo isagaan ku siinay wuu iska kaaleeyay wuu ku qaatay hanagu soo warwareegin waxaan kugu samafali karnaa kaliya telefoonkaas inaad nagala soo xidhiidho nala soo hadaadasho waa kuwa baroorta mararka qaarkood kolka la meherinayo waxay la barooranaysaa reerkii bay waayaysaa inagana dabadaaba la haystaaba gabigeeda inantana dabada la haystaa inankana dabada la haystaa gabadhiina ninkii waa lala qabaa sidoo kale iyadiina hadday inantii dabada joogto reerkoodii baa halkan kala hadlaya waxay leeyihiin soo dir reerka adaa u maqanba isagina wuxuu leeyahay aanu wax biirsanno meel reerkii baa igu soo qaylaya isagina waa inta in leeg asxaabtuna waa noocaas oo kale ama wadaad ha ahaada ama waran dad badan waxa waalaya asxaabta gurigii un baa dumar wadaanuun oo isagii un baa dhagta laga hadlayaa reerkii waxa kala kicinaya dad saaxiibo sheeganaya
oo saaxiibadaasina khayr intay qofkan iyo reerka dhismiisa uma badna waxay u badan yihiin shar iyo naxli batana intoo laga eriyo ayaa marka damana lagu qoslaya waa tii iska ladnayda jannada ka soo baxday bay leeyihiin marka hore intay ka firdhiyaan isuulka kaga joogsadaan ayaa markay doqon noqotay reerkeedii burburisay ninkii ka baxsato iyadoo madaxa xoqanayso oo warwarsan markay arkaan baa waxay leeyihiin waa tidii sidii nabi aadan jannada ka soo baxday way ku wiirsanayaan marka waxaynu kula talinaynaa hablaheena qaaliga ah cid tala xun siinaysa inaanay aqbalin laakiin gabadh waliba ay ninkeeda ilaashato sidii khawla bintu thaclaba saxaabiya almashhuura suuratu adaad akhrida qad samic bilowgeeda wuxuu ilaahay ka warramay ruux dumar ah oo nebi maxamed ku warwareegaysa oo ninkeedii iyo carruurteedii la jeclaynaysa oo la doodaysa ka tegi laba isaga uu furay iyana way ka tegi laada قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير dood bay la gashay nabiga xageen daadaydii buu mari xoogaygi buu qaat waa uu isarrif xageen kaga taga taasoo loo baahan xawaleed inii hore udub xoogay qabsan jiray udub xooga ma taqaaniyo garanayaa udub xoog xageen la iga saaraya reerka marka ninku waa gabadhu waa inay garataa reerka inaanu ninku kala hayn waayo way isguursadeen marka la leeyahay iyana way soo guurtay isna way soo guuray way isguursadeen meesha ma kala laha marka uu ku atoorayn waxaynu baraarujinaynaa ninkuna aqliyadiisa ku socdo gabadhuna aqligeeda ku socoto oo ehelkan iyo asxaabta reeraha burburinaya laga daayo waxa keeni kara sababaha kamid ah yaanu qaadibaan ahaa kulay qadaagina waan ku jiraa nidaamkii qoyska fatwadiina dhinacba iga imanaysa mushkiladii dabadana waa aniga sanad walba taga saddexda meelood ban ka soo ururiyay dhowr iyo 10 kan arimood saddexda meelood waxa kamida kathratu alghiyab wa qillatu sabr maqnaasho dheeraada saaraba inuu soo ishaarnay duu maqnaasho dheeraada de qofka bani aadamka raaxu raba wehel buu raba farxad buu raba way samraysa waliba dumarkeen khayr allah si waa dadka ugu sabir badan gabadh baa ku imanayso 5 sanadood buu ninkayga maqan 8 buu iga maqan ma dhacdo dumarka adduunyada kama dhacdo kaasina wax qoyskii burburin kara way waa in lagu xisaabtama 6 bilood 8 bilood 4 bilood ixtiraam zawaajka waxyaabaha furiinka keeni kara waxa kamid ah zawaajul maslaxa guurka danaysiga iyo muraadsiga ninkaniba markuu guursanayo kiishadeedu ku socdaa wuxuu leeyahay wallahi waxa weeyaan waa isku luuqba ama wixeedana cun iyadana cun tan way macakiishadeedii iska sidataa buu leeyahay iyaduna markay aragto kolka dambe fahamta taa marka hore meherkii bay ka bixinaysaa gabaatiga waa tan ka bixisay yaradkii way ka bixisay marka dambe way soo taagaysa waxay leedahay inta wax ka bixin karaa waa ma badnaanayso warta aduguna waxaagi keen wala isku dhacaya ama waa isxambaarkeenu garanayna isagu wuxuu goorsanay inuu ku dhoofo islaanta wuxuu goorsanay waa islaan weyn isaga ka weyn inuu ku dhoofo abu rabaa iyaduna odayga weyn waxay u goorsanaysaa inay ku dhooftaa bay rabtaa intee uu sii jiri karaa guurkaas xambaarkee ku dhoof markuu xagga isku hubsado qof ka dego ayuu buu leeyahay warqadaadii ama warqadaydii zawaajul basaxaba waxa aad u xasaasiya waxa la yiraahdo khuraafaadka iyo sixirka hadii u dhagoolaysaan taa waa arrin jirto xaqiiqo ah oo dawladina aanay waxba ka qaban dadkuna aanu ku baraarugsanayn bulshadeennina qoysas badan ku burburayaan dadka khuraafaadka iyo sixirlayaashaas qoysas badan bay kala direen oo shuraakay kala direen oo ehel bay kala direen marka arintaasi iskaashi bay u baahantay iyo weerar iyo difaac xoog leh hadii kale dadku meel daran baa laga doonaya qoysaska markay isfuraan istaxagan u buuyeegaya yana xagan horta maxaynu isku furnay ilaan sidinka lagu dalacayo chalfis baa lagu xiray way qarxeen markaas bay miirsanayaan iyagoo labadiiba way barooranayaan dabeedna way isku soo noqonayaan marka arintaasina waxay u baahan tahay dadaal aad u badan oo xukuumadda iyo shacabka iska kaashado tacadudka qudhiisu waa kamid dumarka qaar kood baa deehinaaso oo samri kari waaya oo iyaduna ilaaday kol hadii aad mid kala guursatay hebelow aniga iska kayf taasina ma fiicna sabirku waa muhiim qofka dumarka hinaasa waa la ogol yahay laakiin waa inaan reeraha duminin ila ka darba imanaysa